kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena Nadaara Show. maanta waa Arbaco, taariikhduna waa 8 bisha Febraayo sanadka 2023. barnaamijkan waa kii labaad ee maanta oo Arbaca nadii soo gudbanayno. kii hore oo ku saabsanaa macluumaadka dagaalka Ukraine halka uu marayo waxaad ka heli kartaa Facebook-geena Nadaara Show iyo YouTube channel-keena Nadaara Show. haddaba barnaamijkan waxaan idinku hayaa macluumaad ka soo kordhay dhulgariirka waddankaasi Turkiga iyo weliba wiilka jeegada xiran ee waqooyiga Kuuriya gabar la dhalatay oo hanjabaad cusub u dirtay Mareykanka sheegtayna inay dagaalka toos ula safan doonaan waddanka Ruushka. haddaba wararkaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa anigoo Nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. barnaamijyadeennana waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaalada ee la yiraahdo Safari Remit. xarunteedu waa UK, adeegeeduna waa online. fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waatahay daawadayaal, barnaamijkeena ayaan guda galaynaa. madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa goordhow la hadlay saxaafadda. madaxweyne Erdogan waxa uu booqday qaar ka mid ah goobaha dhulgariirka ba'an uu ku dhuftay waddankaas. haddaba sida ay qortay bishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan in tirada dadka ku dhintay Turkiga kaliya iminka ay kor u sii dhaaftay 8,500 qof. dadka ku dhaawacmayna 49,000 oo qof ay marayaan. inkastoo dad badan lasoo badbaadiyay oo ku jiraan caruur yaryar iyo hooyooyin da' iyo dad badan, haddana xaaladdu weli fari kama qodna. kooxaha gurmadka howlahaasay wadaan. haddaba Al Jazeera waxay leedahay Erdogan warka uu sii daayay waxaa aad u soo dhaweeyay shacabka Turkiga oo dhan. haddaba muxuu ka hadlay Erdogan? muxuu u sheegay shacab weynaha Turkiga? muxuu u sheegay dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dhulgariirka, hadday yihiin kuwa guryahooda burbureen, kuwa ehladooda ku waayay, kuwa asxaabtooda ku waayay? maxay tahay warkan Turkida ka farxiya la leeyahay? haddaba wuxuu yidhi Erdogan, hoteelada dalxiiska loogu talagalay oo dhan waddanka Turkiga, hadday ku yaalaan Antalya iyo Istanbul iyo meel kasta oo hoteelo loogu talagalay dalxiisayaal inay yimaadaan, waxaa la dejinaa uu dhahay dadka guryahooda ay ku burbureen dhulgariirka si ku meel gaara loo dejinaa. dadka milkiilayaasha hoteeladaas iskale dowladdu waxay u sheegaysaa in dadkaas ay albaabada u furaan oo la dejin doono. dib u dejintoodana waxaa ka qayb qaadanaya dowladda. sidoo kale dowladdu waxay dhisi doontaa guryo ku meel gaara oo degdeg loo dhisayo oo teendhooyin iyo qalab kale leh oo 1 sano dhisnaan doona inta dadkan laga caawini doono guryahooda inay dib ugu laabtaan oo ay u dhistaan. haddaba maxaa markaa dadka ay aad ugu farxeen? wuxuu kaloo sheegay in tubooyinka gaaska ee kulaylka keena degdeg loogu rakibi doono goobaha dadka la dejiyo oo teendhooyin iyo maadaama guryo ku meel gaara ay yihiin. dhinaca kale qolyaha mucaaradka ee doonaya inay doorashada kula tartamaan Erdogan ayaa iyagu waxa ay weli ka aamusan yihiin siday wax u socdaan. inkastoo la sugayay mar walba uu hadlo Erdogan inay jawaab bixiyaan, haddana dadku waxay sugayaan jawaabta ay ka bixin doonaan in hoteelada loo fasaxo dadka dhibaataysan, taasoo haddii ay ku hadlaan la leeyahay sumcaddooda si fiican bay dhulka u geli doontaa. haddaba dowladdu waxay tiri dadka hoteelada iskale waxaan kala shaqayn doonaa dadka aadka u liita in hoteelada la dejiyo, cunooyinkooda iyo dawooyinkooda iyo waxoodana in dowladdu ay ka warqabi doonto. marka waa kaas. dadkii kale laakiin Suuriya oo iyagu dowlad la-aanta ahaa oo masaakiinta ahaa iyaguna way iska rafaadsan yihiin. inkastoo hadda gurmadka meelaha la geynayo aad lagu wareersan yahay sidii loo gaarsiin lahaa Suuriya ayaa leeyahay gurmadka, sababtoo ah
dhulka dhulgariirku ka dhacay waa dhulka dowladda suuriya aanay maamulin oo qolyaha mucaaradka ee muslimiinta sunniyiinta ah ee taageerada ka hela turkiga qolooyinkaasaa degan. marka hadda waxaa leeyahay qaabkii lagu gaarsiin lahaa gurmadka ayaa hadda socda. waxay ku talisay dowladda turkiga in koonfurta turkiga laga soo dejiyo si dhulka loo mariyo marka dadkaas loo gaarsiiyo. halka iiraanna ay leedahay iyo ruushka iyo ay leeyihiin Bashaar al-Asad ha loogu dhiibo. sheekadaas turkiga aaday u diidan yihiin, dowlado badanna waa diidan yihiin. marka xaaladda dhulgariirka marka halkaa aanu kaga baxo, wararkii soo kordhay ayay kuwaasi ahaayeen. runtii waxaad ogaataan dhulgariirku wuxuu haystaa warbaahinta adduunka oo dhan. waa musiibo weyn oo dhacday, waa musiibo dunidan aan muddo ka dhicin ayaa dhacday, dhibaato xoog laa dhacday. marka saas darteed niyuusyada adduunka oo dhan wixii kale oo dhan inta badan waa la joojiyey. waxaa laga hadlaya waxawaaye dhulgariirkaas, dadka wax ku noqday, howlaha gurmadka, gargaarka, waxaasaa laga hadlayaa. marka anaguna waxay markaa aan isleenahay way cusub yihiin oo muhiim bay u yihiin daawadayaasha ayaan kala soo baxnaa oo aan idiin sheegnaa. marka intaa aynu ka gudubno qodobka kale ee muhiimka aan jeclahay barnaamijkan aan kusoo qaato waxay tahay sheeko la yaab lahaa timid. cunugii jeegada xiirnaa waxaa jirtaa gabar la dhalatay isaga. gabadhaas marka waxaa la sheegaa inay tahay midda xukunka ka dhaxli doonto isaga, gabar walaashiisa oo isaga xukunka ka dhaxli doonto ayaa la sheegay. gabadhaas marka waxaa la yidhi waa gaangistarad, waxay ka naxaysa male, dadka Kuuriyada waqooyi aaday u dishaa, waa qofaan naxin. marka wixii oo dhan marka manaxayaal waayo, way kala daran yihiin awowayaashood wuxuu kasoo bilaabo ilaa ayaga dhan dadaan naxin ayaa meel walba ugu qoran. marka shir weyn oo saraakiisha ciidamada Kuuriyada waqooyi ay isugu yimaadeen ayay ka hadlaysay sida sawirka idinkaga muuqata. marka waxay leedahay annagu ma u dulqaadan karno waxa ay reer galbeedka iyo Maraykanku ku kacayaan ee ka dhanka ah waddanka Ruushka. ma u adkaysan karno in reer galbeedku ay hub lagu weerarayo Ruushka oo tiro badan, taangiyo iyo wax walba leh ay Ukraine siiyaan. taas macnaheedu reer galbeedku dagaalka toosay ugu jiraan. mana ku fiirsan doono Ruushka in keligii uu reer galbeed la diriro. ha ogaado Maraykanka ayay leedahay in aan annagu isku god ku nahay ama isku meel nahay Ruushka, oo Ruushka aan la safannahay. sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana jawaabteena haddaan Kuuriyada waqooyi nahay arrinkaa uu Maraykanka u arki doonaa, oo weliba si saxa. iyagu taangiyey dhiidhiibayaan kanay samaynayaan reer galbeedka, laakiin annaga si saxa ah u difaacaynaya dheen Ruushka, aan dagaalka ula safanaynaa. haddaba hadalkaas marka waa la qiimeeyey, waa la kala dhigdhigay. khubaradu waxay leeyihiin waxay ka wadaa ciidamo Kuuriyada waqooyi ayaa laga yaabaa iyo hubkoodu inay kasoo tallaabaan xuduudda u dhaxaysa Ruushka iyo Kuuriyada waqooyi, kadibna ay dagaalka kusoo biiraan. marka waxaa kaloo wariyaashu isweydiinayaan warkaalay dagaalka Zelensky uu ka baqaayay ee Ruushka waana soo weerarada ku hayay, ma weerarkaasay qayb ka noqon doonaan nimankan indha yartaa ee Kuuriyada waqooyi, jeega xiirane iyo ciidankiis? arrintaasna marka iyaduna way cusub tahay. waa wararka ugu dambeeya hadda ee saaran miidiyaha adduunka. Maraykan iyo reer galbeed weli wax jawaaba arrinkaas kama soo saarin, laakiin ilaa hadda gabadhan xiirane la dhalatay ama jeega xiirka la dhalatay ayaa warkeeda saas loo wadwadaa, oo maadaama qof iska hadlay aanay ahayn, oo qof weyn ay tahay, oo ninka xukunka haysta qofkii ku xigay ay tahay. marka arrintaa arrin aad markaa murugo usii gelinaysa weeye. xaaladda Ukraine waxay sii abuureysaa isbahaysiyo, waxay sii abuureysaa dagaalku inuu macno kala yeesho, waxay sii abuureysaa in Shiinuhu isaguna kusoo biiro, waxay sii abuureysaa Kuuriyada waqooyi hal mar hadday dagaalkaa gasho oo dagaalkaa la isku fara saaro in iyaguna Kuuriyada waqooyi iyo Japan iyo dhinacaan ay dagaalku uga furmo. sidaa marka tartiib dunidu ay ku aado dagaalka saddexaad. marka wax walba ilaahay qadartiisa ku dhacaan.
ma rajaynayno in adduunyadan hadda dhibaato iyo dagaal iyo ay soo food saaraan, laakiin gaalo waxa ay ka shaqaynayso wax wanaagsan ma aha. marka aan ducaysano in ilaahay dhibaatooyinka iyo dhagaraha ay gaaladu maleegayso uu naga badbaadiyo. anigoo cabduqaadir maxamed cashir nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya daawadayaal. mar kale waxaan idinka soo salaamayaa meel aan ka fogeyn masjidka barakaysan ee xaramka magaalada maka almukarama oo maalmahan aan u joogo howlo cibaado. insha allahu goornowna dib ayaan ugu noqon doonaa magaalada london. haddaba barnaamijyada sheergareya like saara si barnaamijyadeena in badan ay u gaaraan. haddaad nagala socoto facebook oo ku cusub tahay follow garey, haddaad nagala socoto youtube channelkeena hayloobeena subscribe samaysatid si barnaamijyadeena mar walba ay kugu soo dhacaan. inta aan mar kale kulmayno waa anigoo cabduqaadir maxamed cashir nadaara oo idin leh nabadgelyo.